wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub waxaan eegi doonaa xubinta ciyaaraha maantana waxaan idin haynaa kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo ku dagaalamaya xidig ka tirsan Paris Saint-Germain iyo sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa Pep Guardiola oo ka hadlay xaaladda dhaawaca Leroy Sane iyo xilliga uu ku soo laabanayo garoomada kubadda cagta wargeyska Metro ee dalka England ka soo baxa ayaa ku xaqiijiyay warbixin uu daabacay maanta in kooxda Manchester United iyo Arsenal ay u gudbiyeen dalabyo kala duwan naadiga Paris Saint-Germain si ay kaga soo qaataan weeraryahanka reer Uruguay ee Edinson Cavani. Edinson Cavani ayaa ciyaaray 4 kulan oo kaliya horyaalka France League 1 xil ciyaareedkan. dhaawacyadiisa ayaa sababay inuu maqnaado in muddo ah taasoo ku qasabtay PSG in qaab amaah ay kaga soo qaadato Mauro Icardi kooxda Inter Milan. qandaraaska Edinson Cavani ee kooxda Paris Saint-Germain ayaa wuxuu dhacayaa dhamaadka xil ciyaareedkan taasoo ka dhigaysa in kooxda uu doono oo ugu biiri karo qaab baac xorta ah haddii uu san saxiixin heshiis cusub oo ku sii joogayo garoonka ay ku ciyaarto PSG. tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola ayaa ka hadlay xaaladda dhaawaca xidigiisa reer Germany ee Leroy Sane. Pep Guardiola ayaa cadeeyay in Leroy Sane uu ku dhow yahay in uu mar kale dib ugu soo laabto saaxadda garoomada kubadda cagta kadib dhaawacii halista ahaa ee soo gaaray bilowgii xilli ciyaareedkan. Leroy Sane ayuu dhaawac dhanka jilibka ka soo gaaray bishii Agoosto ee sanadkii tagay kulankii ay kooxaha Manchester City iyo Liverpool isaga hor yimaadeen finalka koobka FA Community Shield. laakiin waxay haatan u muuqataa in Leroy Sane uu si dhaqsi ah ugu soo laaban doono garoomada isla markaana uu ka soo muuqan doono safka kooxda Manchester City ka hor inta uusan dhamaanin xilli ciyaareedkan haatan socda ee 2019-2020. fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka saar subscribe kadibna furo gambaleelka si uu kuu soo gaaro muuqaalkii ugu dambeeyay ee aan soo gelino. mahadsanidin.